أغيار شرط لسود وهذا ملك السوء عالم كجوكتين حلك السوء إذا انتهى وحن نكون سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن يدير رجينا يا عافمات قبتامة هل كاد يداون إنسان وجنال كيجي وجنال كيني هذا السوء قارتي فلان سبسكرايب تشير تلايك تكومنتي وحبها كلا صهري ساس وصفردي حتى ظهرنا ولا جوكتي وحتى ولا الجرا جلو جوك سلام جويل كوسارنا أذكر ما أنتم حكولا أذكر حكولا لو ينقف أو سوشيال ميديا قبضي ساعات إلا صوت عافي وحين كسر بحين ضد إيه قبضي يونيفرسال تي في أو لو غرفينا أما لو جهلاي صدقلا أما هيدا ما كلنا ورانا يسا غري أو ملك جوج يسا غري أما ملك دجاج يسا غري أيا لقيت دوداي هذا ما أنت ضدني أنا وحكته لهن يعني أدينا وضد لهن أنا أدينا وضد ناروا أنا أدينا وضد ناروا أنا ساوارك أكوسو بدبي أنا ساوارك كومنتي جاي بريبتو مركا أنت نقولين ضدني فلان إلى داو فيديو جاي ويل marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmeen hooyadii guri haw kire waan soo booqana hooyadii bay noqotay hooyadii guriga ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogol kamana fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato uma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday oo ogolaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyaday inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaan isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha haddaba doodii waxay dhalisay laba su'aal sida anigu arkay ana rabo inaan inta kuugu soo gudbiyo labada su'aal ee dhalisay su'aasha koowaad guriga yaa ka masuul ah su'aashii labaadna waxa waaye sidii tii hore u jirtay oo ahayd saddexda ama hooyada ma kula noolaanaysa guri ayaan u kala qaadaynaa laba qaybood صدق أما هايو كسب وقتي صدق أما هايو كل نار حاجة ما اللي جو نينكا لا يمد دودين من آمن سني أنا ما أنت نين إن وسده ديس لحي فعلت معي أما لا فعلت معي عيب نواي تاس لا يمو هل كربو لكن بحن تاجنين قبلها أوكلية صدق ذا جوري مكلن ولا أنا يساع أيضا حياتي أنا هو ذي وما أمر قاضايو وما فسح قاضايو وقت جرت إيمانه وقت جرت بيحي أسأله هو يديس وحاول إنه أنا إسوا عاوي بيا حلقة إيمانه صوبته برجيني بربرني سام واحد جري ويل كلا تو أسأله نسا أنت سبب كيسين صاروا كاركتين ويل كاس أسنا وحول هاي هو يدي محب برجي كسودوني سام برجي إني إيمان سماعهن فضولني مو هو إيميل الله وتلاقي مقال كيسو كيسو بدبنا إن شاء الله مركا لو هذا السؤال أعرفنا إنا كضلنا تنكوّد أو كهر مرنا يا جوري المسؤول كه جوري يا مسؤول كه أنت مركا أنا فكرت ده أوجد قليل يوحي شريعة الإسلام كقبته يدين تاني حاجة كقبته يدقن كأنه هو كقبه بل إلى ده مقال كان مسؤول كلبات جوري مية قرن إنسان مسؤولية كواد من كي قاله طلبان أنا قاله صدق هذا ويا مسؤول كلبات جوري hooyadii baa ka masuulaana masuul baan ka ahay hooyadii ma dhashay waa ma dhacaysatay guriga ana ka masuulaana anigu qaba guriga waxa ka masuula hablow oo guriga qoyska taaga waxa ka masuula ninka gabadha u soo gogol fadhiistay ee guursaday farda guriga maxay ka tahay gabadha markaa masuul kalabaadna waxa guriga ka masuul kalabaad ee guriga miya garanaysan sodohda weeye masuul kalabaad ee gurigu horta inantu bilaash looma dhalin reer baa ku soo tabcay iskuul bay dhigataa jaamacad bay dhamaysay way shaqaysanaysaa reerkooda biilinaysay intu sida caruusada soo qaatuu dhaho gurigan ii dhex fadhi hooyadii baa ka masuulaana masuul baan ka ahay hooyadii may dhashay waa ma dhacaysatay guriga anaa ka masuulaana anigu qaba ilaahay nin buu iga dhigo guriga anaa ka masuula ilaahay nin buu iga dhigo haddana hooyaday gabadha isku wadi kara waayo oo isku hayn kara waayo hooyaday baan ugu waaya guriga waxaa masuul ka ah aniga iyo ninkay qaba guriga waxaa masuul ka ah ninka masuul ka ah sidoo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday kulligiin waxaa tihiin masuul ninka wuxuu masuul ka yahay reerkiisa ka masuul ka yahay islaantiisa caruurtiisa reerkiisa idinuu masuul ka yahay islaantana ama xaaskana waxay masuul ka tahay wixii loo dhiibtay ilmihii iyo reerkii hoose iyo waxyaabaha hoose guriga ee masuul ninkeeda uga tahay waxyaabaha haddii halaawaan ayadaa su'aal laga weydiinaya
saasaa ku ogeed waalidkuna guriga wuxuu ka yahay waaliduu ka yahay bal ninkan aa leedahay guriga anaa mas-uulka ah adiga asaga ha iga amar qaata aa leedahay iga inan qaata aa leedahay bal hooyada ninkaasi asaga leedahay xadiiska rasuulka sal alay slam ka sugnaanay ninkii wuxuu ku dhahay adiga iyo hantidaada iyo maalkaaga waxaa kula aabbahayaa ku leh hooyo intay jirtaa marka way ka xaq badan tahay aabbo ma fahantee guriga waxaa mas-uul ka ah su-aashaas jawaabteeda waxaa waaye guriga waxaa mas-uul ka ah ninkaa mas-uul ka ah bal ninkaa laga rabaa marka haddii marka koowaad horta marka koowaad gabadha aad soo guursanaysid dooqa u leedahay hadday hooy adigana dooqa u leedahay waddana adiga kaa furantaa iyadana marka koowaad ee waddo ka furantaa walaashay iyo walaalkii marka koowaad markaa isguursanaysiin haddaa ku heshiisiin inaa isku meel wada degtiin oo hooyadaa ay la degto ee iyada kugu soo raacdo waxaa waaye adi aragtinimada isaa ku xalin laheyd adaa lagaa rabaa waddo waay marka koowaad iyada joosay leeda walaalkayga aniga reerkiina ma dhex degi kari meel gooni i deji haddii adig kugu qanacsata ama ayada isku qanacsataan meel gooni waa degi kartaan laakiin haddii hooyadaa ay ku baahan tahay oo waddo kale aysan jirin meel gooni inaad degto war walaalay aniga meel gooni ma degi kari sababtoo ah ani hooyaday ruuxa aniga ahayn ifka uma saarno ama maya ka dheh waxa ila dhashay waa dumar hooyaday anaa rag u hooyaday ani gurigeyga inay ku noolaataa rabaa inaa marka hore u caddaysato gabar kugu ogolna ay ku raadsato waa waddo la garte bal waa la isku imaaday gurigaa la wada imaaday guriga markii la wada imaado adig iyo ragtinimadaada lagaa rabaa inaad ku xalisid ay ku wada joogaan reerkaagii oo dhan aad ku wada haysato meesha ay kugu wada joogaan taasna waa wax laysi dheeryahay okay midna aan kuu sheego marka la fiiriyo sodohda ama hooyada marka la fiiriyo horta problem waa jiraa gabadha waxay ku dhihi kartaa oo u furan marka koowaad saa kuu sheegay gurigaan waxay kala kulmaysa allahu aclam hooyo fiican oo soo dhaweyso oo isfahmaan hooyo ku xumaato labada way la kulantaa wayna dhacdaa wax dhaco waaye wax reality oo dhaco waaye oo dhaco in maantay gabadh iyo sodohda intay isqabtaan isku xumaadaan wiilkii gabadhi uu furo u dhaho walaalay aniga hooyaday waa isfahmayseen iska bax uu dhaho waa waddo waddada kaloo xigto inay isfahmaan oo noloshooda inta ka dhiman ay isku meel ku noolaadaanna waa dhacdaa gabadhi marka hadday kuu soo bandhigtay ku dhahda aniga waxa aan filan doona allahu aclame walaalow bal maxaa ka sameynaa arrintaas adee kaa guntantaa kaana furantaa inaad dhahdo walaalay ani hooyaday meelaan ka aado ma haysto iyadana meel iga aado ma haysato ani hooyaday la degi rabaa haddaa saas igu rabto soo dhawow haddii kalena sii soc walaashay ana mid qeyr qabto oo igu rabto arrintaas aan raadsanaa cuudaaradaada inaad soo bandhigato iyadana cuudaarada ay soo bandhigato diintu way banaynaysaa ma diideyso gabadhan aad barnaamijkaas soo bandhigtay ila daawa iyadana muuqaalkeeda يعني شكله وين clear أهاته from the beginning ما قرأتها إن التوس لو شيء جو وحين أنت اللي قلها ولا ما قال وكش عليها هاي أنا وجهش هاي كورن هذه هو يدي كل سودكتو إذا شو يتكلم مركز ما قرأتها هذه ترى هذا ما في مشكلة وعادي هو إذا ما مولي كرا ونضو قاضن كرا ما في مشكلة بني آدم وكلا ضبع ما قرأتها وحي كهل سي ما مر دويد وحويان دمر با سيد الشيء سي أيجو أركن صدوه ذي لأنه ولا صدوه ذي وحبي كأمسيهن معتقدات باكرتها ما قرأتها وفكر لقبه يذوب شيء كذيبه lagu noolaal baa fataa waxaan ka rajaynaa qof kasta inuu iska tirtiro leeno qofka dadkoo dhan waxta sadoh aad u macaan baa jirta oo aan soo dhexgelin kaaga hadalkaaga wuxuu ku soo koomaya Soomaha inanku ha weydiisto in hooyadii dhashay uu weydiisto amar ugu weydiisto in guriga kula noolaato maaha aan waxaan ku raayay hordhac u sii sheego intaan la iskursan waba hooyadii dhashay sidoo ugu sheegi karaa in gurigan uu leeyahay soo kula noolaato Soomaha de awalan su'aasha meeshaan ka qalday su-aasha meeshu ka qalda waxaa waaye labadii qof weli isma guursan labadan qof weli isma guursan banaankii kala taagan yihiin gabadhan waxay ka hadlayso bilawga sheekada from beginning ay ka hadlaysaa sheekada bilawgeeda ay ka hadlaysaa waxay leedahay marka koowaad ee sheekadan bilaabanayso habal isku soo qanciyabo walaashay ani hooyadii wataa hooyadii guri ula noolaanayso ku soo qanci gabadha u soo sheeg
haddii ku dhahdo walaal aniga ma rabo adi hooyada meel uga tagto ma jirto okay guriga la wada imaan saa ku sheegay adi isku xalli waa isku xallin weyse ayada fudud that's why halka hooyada ayada gabadha fudud walaal waa fasaxan tahay khaladkan dhacay macnaha hadda adi leedahay iyo hadduu qof kale leeyahay wixii dhacabo adiga waa fasaxan tahay ayada fasaxan hooyada mar walba waa waalidkaaga way qaldami kartaa laakiin meel uga leeyahay xataa ma jirto hooyada gabadha hadday qaldan tahay iyo hadday saxan tahay ayday u taallaa horta xagga dhig laakiin maamada ku dhashay qalad iyo sax Soomaali xukuma mahdaa waalidka gar iyo ma aragtay maxaa lahaa Soomaalida xukuma mahdaa waxay dhahaan waalidka kula garamay miya wax saadi waalidka mar walba asaas ahsan waalidka mar walba asaas ahsan maamada ay goosay waalidka marka mar walba asaas ahsan khalad iyo sax asaas ahsan kulama doodi kartay marka arintaan inta gabadha saan inta saan ka dhacday hooyasaan waa iyo cuudaan iyo kan iyo ma jirto hooyada waxaa jirta qiso nabiyullaahi ibraahim iyo dhaxmartay nabiyullaahi ismaaciil uu soo boqday uu dhahay wiilkeyga markuu imaado waxaa ku dhahdaa xatabada gurigaaga bedel wuu imaaday wuxuu dhahay xatabad aabaa imaaday dhahday aaba markuu imaaday wuu ku sii waayay wuu ku dahsaday wuu kaa tagay xatabada bedel way dhahe xatabada wiilkeyga markuu imaado u sheeg xatabada guriga ha bedelo adigaa lagu furaayaa la soco waa la furay safarka dambe uu imaaday wuxuu dhahay wiilkeyga waxaa ku dhahdaa islaanta dambe ugu imaaday wiilkeyga waxaa ku dhahaa xatabada guriga adkeey gurigaaga adkeyso marka waalidka mar walba asaa iska leh noloshaada asaa kuu dooqaayo oo ma aragtay wadada noloshaada wanaagaagu rabaa wuxuu kuu falaayo aanu imaano doodayna la sii dheeraan guriga amarkiisa waxaa iska leh ninka iska leh aan usoo noqono marka ninkii wiilka aan usoo noqono qodobka wiilka hooyadaadii adiga ku dhashay ee ku dahatay iyo gabadheeda markay soo taagto kolay anigu shakhsi baan oo 10 baan hooyada u furaya mid qura daay 10 ciyaal hadday ilaaday hooyada ma raaya diinta islaamka ay faraysa adiga guurkaaga hortii weyn noolaayda meesha ku noolaa iska noolaat maxaa hooyada loo dulkeenay reerka isku guursaday dooda la fahmo weeyaan war dhaqankiina waa dhaqankiina way tanuguna dhaqankiina mid fiirsan idinka nolol waalid soo way labadan qof isku guursaday waxa hadaf bay leeyihiin oo jeed isku guursadeen waaga ma huwa ila ma imarta dad hooyada diideen tag ma hadda taas aqligal ma hadda adigu miyaad ogoshahay hooyada in loo diido gurigaad adigu aad hooyada maxay soo doon saartay been hooyada hooyada gurigeeda ilaahay hooyada ma gurigeeda ma qoray waaga waayay aqal waayay waay dadkeena dawanaya dad wax ku jirta dad wax bartay ku jirada wixii jaahiliga in laga baxaa loo baahay hooyada adigu ma tada hooyada aniga mita adiga tahay aniga hooyada ma soo walaalada wiilkan iyo gabadhan aan rabaa laba wiilkan waa aragteen gabadhan waa soo aragteen si oo hadlaysay marka wiilkan inaan qodob dhaxaa rabaa gabadhan qodob aad horta wiilka ku hormara horta wiilkan mawduuca laga hadlayo ma joogabo mawduuca laga hadlayo xilligan laga hadlayo ma taagno ninkan waa maqan yahay go labo ninkan diinta islaamka mar labaad inuu barto waayo sharciga islaamka iyo diinta islaamka waa mar labaad hadduu hore u bartay saan uu ku bartay mar labaad inuu ku noqdo waayo sababtoo ah ninkan firi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض نينك رجع أسا غريغيسا مسؤول كأه أنيغو هويدي إسو بوقنيسو بوقشدو هويو إنا أضفص عقادة إذا قلط واحد أم إيمانيسو ولا نولان شاها مركا كو أم حدي ما أنت هويدي إسو متيسطو مركا هويدي إيمانيسو وإنا كهذا aniga xaaskeyga inaan ka wada hadalna waa hadaa markaas isqabno hadaa hore isku soo qabin inta ka soo hadlo waa kuma noqonayo laakiin hooyo ay soo muteysatay magaalo aan joogay imaatay inay la noolaatay rabtaa waa inaan ka wada hadalna aan dhaha hooyadey imaanayso soo fadhiiso reerkan ani aduu naga dhaxeeya dawladdan dhisan ani adee noo dhisan tahay waxa waay hooyo nagu soo biirayso hooyadey ani imaanaysa gurigeeda ku soo diraysa waa ila noolaanaysa wada warka waa cadeysatay ilaa biis waa cadeystaa ayada biiheeda cadeysanaysaa marka waxay leedahay anigu ilama noolaanayso okay hadday kula noolaanaynin walaalay macaantu aniga waxaa artiyaha ilma xagga dhig waxaa waaye anigu hooyadey meel ah guri inta u kiriyay naag uma qabanayo anigu hooyadey way ila noolaanaysaa warka halkaas waaye marka wanaagi aa kula dhaqmi lahayd
saa aniga reerkaaga adigu u wanaajiyo adigana aniga reerkeyga u wanaaji oo hooyaday wanaaji waxa adiga lagaa arkaan lagula dhaqma ani saa qabo taas waa ama booqasho fasax qaadis uma baahno hooyaday aniga ileedaha ku dhahay hooyaday aniga ileedaha ku dhahay oo aniga ileedaha ilaahay ka sokow idaa ilaah soo ma garanaysid si marka ani gurigeyga guri ani aan leeyahay ya guri ani aan leeyahay si marka ay u idin qaadani mid kale waxa ku sii hartay xaaska dhex joogta gurigaas seeto soo ani ma qaba rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay fiirso haddii qof la amri lahaa inuu qof u sujuudo shirki ay tahay meel la gaarsiiyo darajada ninka naagta loo gaarsiiyo waxaan dhihi lahaa naagta ninkeeda ha u sujuudo fahmaysaa marka baxayso guriga hooyada aadayso inay ku soo wacdaa kuu sheegtaa guriga hooyada u socdaa ku dhahdaa markii guriga qof soo galaayo waa inay kuu sheegtaa ku dhahdaa qofaa soo galaaya ayada ee ku dhahdaa ayada aabaha soo galaayo ee ku dhahdaa maanta aabii abooyaal reerka ay imaanaya la soco inay ku dhahdo waaye soo ma garanaysid bal ani hooyaday waa u imaanaysaa waa wacaa waa u sheegayaa sheegitaanku way ugu leedahay inaan dhaho xabiibteedii ama hiblaayoy markaasay taadi magacaa iskugu wacno ama xubbi waxaa iskugu wacnaani iyadoo naga dhexeeyo inaan waco maanta hooyaa kusoo booqanaysa la soco isku sii diyaari ma ahan hooyaa ku imaanayso miyay imaan karto amar qaadasho ma aha hooyaa imaanayso ee isku diyaari ma fahmaysaa hooyaa kusoo booqanayso gogasheedii waxeedii raashinkeedii barnaamijkeedii wax alaala waxay rabto hooyo waxay dooqeeda waa taqaanaa sii diyaari ma fahmi kartaa labadaas wado waaye waxaan ilaahay ugu cadeeyey ya ma faradnaa fi lkitaabi min shay waxba kitaabka loogama tegin marka waxba yaa isdaalin dood inta ujiid yaa gelan wuxuu sheekh umul ka dhahay ay kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena qawaamuuna cala annisaa isaga ay tahay guriga mas-uulka koobaad ka ah isaga ayna tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninka mas-uulka ah isaga oday ka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimay ku saabsan wadatashi ya wa amruhum shuuraa baynahum laakiin go-aanka gabadhamaysta ayaa leh marka la tashado odayga guriga iska leh laba awoodood oo simanna ma aha hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayeen waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhaxeeyo ma jiri karo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa samadan iyo marka sheekh umul wuxuu ka dhahay waa maqlayseen barnaamijkaasuu gaaray sidaas fasiixa ah oo uga soo hadlay ninka ayaa guriga maamulo meeshana laba madaxweyne magaalo kama wada talin karto fahanteen waxaan ilooba haddaaya dhanka gabadha dadka qaarkeed waxay leeyihiin gabadhan waxaa waaye totaliba gabadhan maskax ahaan waa jiran tahay ama dhibaatooyin fara badan ee soo aragtay ama sodoha ayada soo xumeysay ama walaasheeda sodoh xumeysay dhinacyo fara badan aa loo saarinaya aniga waxaan dhihi lahaa gabadhan ra'yigeeda ka hadashay laakiin waxay u baahan tahay qof intuu la fadhiista waxyaaba fara badan fahansiiya oo ka dhaadhiciya axwaasha jirta iyo xaaladaha ma xumo ma fogo waxay taagan tahay iyada aan guri gees outajin waa soo booqanan aagoonna ma taagno bal aa soo booqanay taagan tahay waxaa la rabaa in la qabto wax loo sheego fikriga xambaarsanta oo ah reerkaaga ilaasho reerkaaga yuu kaa dumin inay xambaarsan tahay laakiin gabadhan kaleeto aan rabo muuqaalka inaa ku soo xidho ayaa waxay u hadlashay si aan innaba caadi ahayn muuqaalka hadduu kusoo gaaro sii sheergaray gabadhan ayaa kusoo xidhi doonaa muuqaalkeena daawasho wacan kuma khilaafay ragga hooyadu garabka siiya waayo haddii maanta aniga maxaa heeday sodohda laiga jecel yahay in badan waxaan maxaa heeday aqoonsanayaayoon yacni aan maxaa heeday jeclaanaya anigana hadhow toole inuu saa ugu jecel yahay hooyadii uu ixtiraamay in carruurteedana anigana ixtiraamaan marka mar kasta aynu aaminsanaan oo carruurteedana horta jiilkan iyo jiilka hore xoog bay u kala fog yihiin oo iskuma dhawaa
caruurtan intan dambe jiilka lama barbaarin waxay tahay sodohdu waxay tahay oo waxay ka sii aaminsan yihiin wax qiila qaal oo la yiraahdo sodohdu markasta waa qofkaas soo horjeeda sodohdu qayb ma ka tahay markaa burburka qoyska maya boqolkiiba 80 kama aha way dhici kartaa in sodohayada qaar ay si yar fikir kale u aaminsanaadaan waa dadka aan aqoonta lahayn baan oran karaa laakiin hooyo kasto maanta aqoon leh isma lihi anigu inay maxay yahay reer burburin karto reerka inankooda adigu see u aragtaa fikirkaagu se muxuu yahay commentiga noogu reeb sidaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala